nin dembiile ah ayaa ku dhuftay ul gabadh 3 sano jir ah. Waxay u muuqatay in gabadhu halis weyn gashay oo ay nolosheeda halis ku jirto. Hooyada gabadha ayaa si dhaqso ah madaxa u dhigatay si ay ulaha u joojiso. Markii ninkii dembiilaha ahaa arkay in uusan gabadha gaarin ayuu caro ku qayliyey. Mid ka mid ah gacalisadiisa ayaa si degdeg ah ul mindi ku tuuray. Hooyada ayaa si dhaqso ah gabadheeda u ilaalisay. Ninkii dembiilaha ahaa ee naxariis darrada ahaa ayaa si toos ah ul mindida u tuuray hooyada iyo gabadha. Xilligaas muhiimka ah anigu gacmahayga keliya ayaan ku cararay. Waxaan qabtay ul mindida halista ah si guul leh ayaan u badbaadiyey hooyada iyo gabadha. Anigoo wajahayay in ka badan hal eber dembiile cabsi uma muujin. Ninkii dhinaca jooga weli wuxuu ku qaylinayay aflagaado. Waxaan ul mindida ku tuuray cagihiisa. Ninkii dembiilaha ahaa ayaa isla markiiba xanaaqay oo amaray raggiisa inay i dilaan. Laakiin ma aysan ogeyn xirfadaha dagaalka ee cabsi gelinaya ee aan leeyahay. Dembiile diyaar u ah inuu dhinto ayaa xitaa mindi ku haystay qoorta. Anigu si degdeg ah ayaan u xanaaqay, farta dhexe ayaan u muujiyey oo aan ku idhi iska taga. Kadib ilbiriqsi gudihiis si fudud ayaan koox dembiilayaal ah u jiiday. Waxaan qaaday ul mindida duulaysa oo hal jeer si nadiif ah u garaacay, waxaan ku qasbay ninkii inuu cabsi galo. Laakiin anigu keliya waxaan gooyay loos. Kadib waxaan ul mindida ku tuuray cagihiisa ninkii, waxaanan u jeestay gabadha, looska ayaan u dhiibay anigoo leh ha baqin. Markaas hal dembiile ayaa isku dayay inuu si qarsoodi ah i weeraro. Anigu gacantiisa ayaan qabtay oo fursad siiyey inuu lafaha isku toosiyo oo uu duugto. Wakhtigu wuxuu u muuqday inuu hoos u dhaco. Ilbiriqsi gudaheed koox kale oo dembiilayaal geesi ah ayaa ii soo booday, diyaar u ah inay i dhameeyaan. Anigu waxaan galay hab dagaal oo aan xad lahayn.